عمر مين مقشع عمر محمد قلت الصبح واكم مقلع الشيخ واكو سلام ورتقير الله كسي عمر ان qofkii ugu horeeyay waxaan ahaa maalinkii xaaladda ku qabsatay maalin khamiis ay ahayd waxa ku xigtay subax jimcada kacbada ilaahay kaaga soo dawaafay clip video soo duubay anoo ku ducaynaya live soo galay saas arrintu ku soo gaartay niyahow أنا داود والله fideoga waa arkay anoo weliba isbitaalka ku jira la daawadsiiyey ma garat telefoon markaa ma haysan anoo isbitaalka ku jira la daawadsiiyey waa kula kaftamay horta hadalkayga naxli ha u qaadan anuu nin kaftamaanahay sax dadka dadka tuuraya lama kaftamo shakhsiyadooda kuma xadgudbo hadda ninka daahir cali soo waa la kaftamaa saaxiib baan noqonay awal waan isdagaalsanaan jirnay islaamaana hadli jirin 7 sano baan isla hadli jirin ma garat 7 sano ku dhan 7 sano baan waxa weeye ninkan de waxa weeye hadduu ku daba galo waa ku daba galay saas uu ku daba soconaya ma haraya xataa 7 sano baan anigii daahir cali soo aanan salaanta islaamka iska qaadi jirin ma garat waa gartay haddana waa aragtaayo waa kaftanaa waa isku nimaanaa meeshaan intaan waxaan rabaa iraahdaan tagaa ma garat iyadoon cidna caloosha waxba igu hayn marka sheekh aadan oo anu nin iska kaftamaanahay suufi baan aragtay bilaa naxliga ah oo aan sida cuqdada iyo shishaydii qofka ishayaan u tuubaraacayo maahi maasha allah markaan leeyahay sheekha inniisaan ka baqaa cali yacni aniga wadaadada ma ogoli yani wadaadada ma ogoli markaan kuleeyahay fanaan baanahay wadaadada miyahow nafta ala lahayd bay noo keeneen fanka joojiye waa xaaraan si noogu hayeen annaguna inaan iska qaraxaysana rabnaa dhalinyaro soomaaliyeed oo stress iska qabtaan nahay ma garat waa garta marka wax xumaan oo aan kugu qabo ma jirto ilaahay ha ku karaameeyo sheekh sharaf leh oo karaamo leh oo xajkii jooga oo ummadda soomaaliyeed usoo xajiya oo weliba wax bartay inaad tahay baan ogahay nin wax bartay inaad tahay weliba waxaan dhegaystay hadalladaadaan dhegaystay dadaad iska dhicinaysaan dhegaystay qaabka u hadlaysaan dhegaystay waxaad tahay nin maraykanka wax ku bartay oo hadda sacuudi carabiya jooga oo dadka wax fahansan ah oo dadka weliba waxaad iila eg tahay dadka iftiinka nuurka iyo iftiinkaabaad iila eg tahay dadka balaayadu ka buuxday ilama ekid waa maasanta maasha allah إن شاء الله وحرجينا إلهي سبحانه وتعالى إنه كو سهلو إناد كعبد إلهي كسو عبادي ستو عمرو ولو بشهر رمضان إن شاء الله إنان كو عسوما كو سدوي أديك إيو والكي ظاهر لبدي نبا بشهر رمضان عمرو رمضان كو حيلا أجر تهي قف رسولك عليه الصلاة والسلام لحجي حج أجر كي سهلي لا لله لا لله وإنا إليه راجعون ماني ظاهر بس لسه حاطيننا بشهر رمضان إلى اسكو آمنات نهار يسلم ولا يساوي وقص اللي نلشة انت مركب وحربته وحلالي وحي الدب الظاهر لقد قلنا انت الباب كان لا يسرو مركب بحين الا سكاي خلطاني قورت لا يسرو ماي رحمة إلهي كليبك ugu dambeey had aan soo dhigeyso waa كليب waxa waa كليب aayad quraan ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay qof walba oo muslim ah dambi walba ay sameeysid lagama quusto raxmadda iyo naxariista Allah subhanahu wa ta'ala waxa la yiraahdaa dambiyada qaar waxa la irida lagu surayaa moogta kaas waa qofkii dhig islaam gala waxaan ka daahiriya og ما داير ديك سلام ما قب الشيخ هذا لو دنبقه وكبقيه كيسه ما كداير على سو كبقيه لو خلص كداير على شيء قف كلا دنبقه سبقه من هذا الكبوس هذا دقيقه waxaan ka baqayaa qalab in la isiyo ما لو بس يرا هوشاس waa hoosh malaa'ikaha qabsanayso malaa'ikaha ma qabtaan والله إلهي توقع أدعو قصله وريا ظاهر وكما تليفونك بس لسه حجنا ها وكلية ها كل عن ما مغلب الظاهر
midda kale aadan oo sawirka iska soo bedel ilaa lilaahi wa ilaa ilayhi raajicuun ina adeero laakiin maxaa ku keenta adiga daahir niyo waxaa ku keena daahir si private u wada hadalnay hadda kahor whatsappka waa ku ballansannahay in uu soo cimro imaado oo xaramka imaado maasha allah weligii ma tegin weligiis ma imaan weli ma imaan adigana weli ma imaad weligii ma tegin anna والله ورد weliba aniga aan willing anoo og labadiinaba ilaa iska bixin kartiin laakiinse haddii aad rabtiinna anaa casuumaad first class flight idiin soo jiray sheekh dad masaakiinaa jega labada midna kuma baxdo maya dahabka guriga yaala gadaysa aadano dahabka koombada ee guriga kaaga yaalo labada midna kuma baxdo daahir waa soo dabaraynaa kowdhe haysta baraan iyaga imaanayna haddaan rabo dhulkaan gadanaya dhul uu siiyey dahab ku yaala maarag dhul buu isiiyey moogta hadda haddaan rabo dhulkaan gadayaa soo baxa laakiin daahir maya cumarow dhulka maadaama uu hadiyad yahay hadiyadda la iskama gado dhulka ha iska gadin weliga halli baa jira duulaad aniga lacagtaan haysta waa xaaraan daahir lacagtu haystana waa xaaraan astaghfirullah maxaa xaaraantinimeeyey daahir wuxuu ka sheekeeyaa qabyaaladda iyo siyaasadda isbaara u taalla social mediaha baad iyo xoog buu lacagta u haysta kusoo dhaca aniguna fanaan baanahay oo waxaan ka shaqeeyaa social media oo fan baan ku keena music dig iyo dam baan ku keena iyo aroos iyo 17 meelood la isku buuranayaan ka keenay markii runta la sheego daahir madaxweynayaasha uu baadaa xawaaladaha waa baadaa waa gangster social mediaha oo murquhinta leeyihiin dadkan oo dhan xabsi bay ugu wada jiraan anigana oo maar ahaan fanaan baanahay waxa aan haysto haddii la eego adigu haddaad ii xalaalaynayso aniga daahir haddaad noo fadwoonayso waa imaanaynaa maya aniga taas kuma fadwoon karo midda fanaannimada laakiin midda daahir waxaan la socdaa daahir inuu ganacsada yahay qofka markuu business ku jirana dhulal iyo guryo iyo businessyo badan uu daahir ku jiraa marka lacagtiisa markiisii hore dahabshiil buu ka keena markiisii hore xagee ka yimid ninka ma jooga waa la jarjaray maya dad waxaa jira mataqaanaa wax yar inta ka bilaaba ilaahay wuxuud u barakeeyo asaga in la weydiiyo weeye meesha ka keenay asagaa weydiinana asagaa ka jawaabi doona marka cumarow dhulka uu ku siiyey say ku xalaaloobaysa haddii uu haysta xaraan yihiin dhulku waa xalaalow meeshuu degaanka u lahaa dhulka waa la aaminayaa waa degaankiisii aniguba hadda haddaan dhulka siiya garacad iyo bacaadweyn iyo waa lay aaminayaa dhulal baan ku leeyahay marka meeshuu deganaa oo degaankiisa ahayd weeye waa dhulka uu siin karaa oo dhul ninkan waa ku leeyahay meesha uu ka yimid ilaa daahir cirka kama imaanay laakiin cumarow haddaay waxaa ka dhawaajisay adnayna u ballan qaadaysa inaad garaaca dhulka siiso wallaahi waa ka siinayaa oo bilaahi waa ka siinayaa oo tallaahi waa ka siinayaa inta iga siiyey laba jibaarkeed baan ka siinayaa maasha allah weliba odayaasha nabadoonnada cuqaalada suldaamada oo meesha fadhiyaa waxay daahir cali soo ku magacaabayaan weliba anigu waxaan uga dhisayaa meel yaroo bogcado aan magaciisa ku qoraan uga dhisayaa dhulka si aan loogu xadgudbinba oo aan la dhihin dhulkan yaa iskale iyo dhagax loogu digsan asagu xilligu doona ha tago inkastoo uusa tegayn laakiin anigu hobyo waa imaanayaa haddii ilaahay garowad ka siinaysaa dhulka cumarow garacad meel bad waa daris be garacad iyo hobyo waaba daris bad buu iga siiyey bad baan ka siinayaa yes waa daris ba marka magac daahir calas uu ku qoran yahay garacad ku yaala iyo reer garacad say u heshiinayaan waa caadi maya aniga hadda waxaa qaadaan dad badan oo soomaali qabiil walba leh oo garacad maalgashi ku samaysta waxay u heshiinayaan ninka siiyey baan nin aan lagu degdegi kara ahayn oo laandheera dhageyso Omarna magacaaga lagu qorayaa Omarow hobyo dhulka laga siiyey haddii
ها anigu waa soo degayaa waa imaanayaa oo waa maar dhismayaa barbar baa lagu qorayaa weliba eeg dadku inay saa isku dhex galaan oo waxa weeye wax isa waxa way wax siiyaan ku dayasho la weeyaan ku dayasho leh isku yimaadaan waxay ka mid tahay Soomaalinimada iyo waxay buhaada markii laga soo tago beenta laga soo tago walaalnimada iyo Soomaalida wax wada cunkay ka mid tahay aniga Daahir Cali soo dhulkiisa boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inaan qof bini aadan oo ku saqajaanaya aysan jirin markii eelabo gaalkacyo garoonkeeda Daahir Cali soo adeerkiisa qoojo dagaari magaciisa ku qoran wuxuuna ka mid ahaa dadkii abaanduulayaasha ahaa oo dagaalkii ka qayb qaatay sukeeye ma fahanti waxaan loogu qoray magaciisa maadaama uu ahaa nin mudug ah oo generaal ah oo dowladda Soomaaliya wax ka soo hayay wax aan sheegayo wax beena maaha waa cadayn document oo arrintaas waxaan moodayay airportka in kaftan iyo dacayad la isku dacayad ay ka stadiumki xawaala lagu qoray ajar qojo lagu qoray kaftan maaha uu ku qoran yahay jal qojo dagaare alooma stadiumka 20 nin oo Maxamed la dilay kaftan iyo isdhaxgal iyo wada noolaansho reer mudug baa laga bartaa sheekan ku haya waa la duray waa la dhageysanay dulan qoray document qoray dhageysta nimanka ganacsatada tujaarta Soomaaliyeed ee shirkadaha waaweyn isgaarsiinta iyo xawaaladaha bangiyada iska leh soddonkii sano ugu dambeysay cashuur bay bixinayeen ma shacabkay wax ku celinayeen dan guud hawadeena iyo koodkeena isticmaalayeen transactionskeena iyo cashuuraadkeena isticmaalayeen lacagta dadkii u adeegeen annagay ahayd waxba noogama soo laabanin shacabka Soomaaliyeed seebaad ku ogashihiin inaad dhahdaan nimankaas waxooda waa xalaal qofkii wax ka qaatana waa xaraan hal laga jawaabo yaa mud la gelin laga jawaabo ku soo celi maxaa tiri waa kaaga jawaabaynaa dalka Soomaaliya isgaarsiin buu leeyahay haye bangiyuu leeyahay xawaaladuu leeyahay haye tusaale aan isgaarsiinta aerial code way soddonkii sano soo dhaafay way shaqaynayeen haye dowladda cashuuraysa ma jirin lacagta dadka Soomaaliyeed ka qaadayeen haye jaamacado iyo wadooyin ay ku dhisayeen ma jirto haye isbitaal ay ku dhisayeen ma jirto haye wax walbaba Soomaalidaas iyo hawadeen isticmaalayeen haye antiilooyin dhaadheer ay ka dhisayeen goobaha oo dadka ku wada ridi kara ma taqaanaa xanuuno ay ka qaadayaan haye yaa in yiri dadka saas u shaqeystay haddaan inta wax ka soo qaaday aan wax ka cunay yaa in yiri waa dembi area codki iyo wixii oo dhan yaa in yiri Daahir Cali wixii saxaraan yihiin waxdana waa xalaal okay adiga yaa xaq ku siiyay inaad adigu canshuurto adigu ma dawlad baad ha ma dawlad Soomaaliya ta waxa xaqiiqsi buu sheegay ha awooddaas yaa ku siiyay adiga wax isiya ku sheegay haye marka qof shacab ahay ya wixii aan xaq u lahaa hadii cashuur laga qaado soo gaar lahay yani aniga ka doonto ka qaatay okay qofka maadaama aan haysan dawlad iga qaadda wixii aniga dhiniyo meeshaan awoogiya iska lahaa dhulkan awooyaashii way awooyaashii halkan u soo halgamay wixii wax iga sii dhiigiya ku daatay meesha okay tuugu markuu tuug dhaco muxuu tahay sharcigiisu maxay tahay hadda rabana ogaato xogkaas culumada lagu waxay soo dhacay hadduu tuug kale iga dhaco tuugga kale dambiile ma yahay mise maaha maya xogka sal raadiyo bay arrintan inaan culumada geedho waaye qof xoola shacab qaatay oo dhacay oo cashuur aan ka bixin oo shacabkii waxba ku celin qofkii dadkaas wax ka qaata وقنيمو waa ognahay frankweysiga Soomaaliya inay xadeen waan ognahay inay shacabka Soomaaliya ay xoolahoodii qaateen waan ognahay informationkii dadka xataa inay jeebka ku shufteen waan ognahay shilinkii Soomaaliga inay ayagu burburiyeen waan ognahay hawo inay dadka ka gadeen oo saad iyo sahli ay ka gadeen waan ognahay wadaadadaas iyo dadka maaragtay ictisaamka liyaada iyo dadkan adigu xawaaladaha iyo meel walba haysta inay la wareegeen wax walba oo ay bilaa canshuur ku qaateen adigu marka waxa tahay gangster awood leh oo xoog leh oo ayagana ka daba tagay oo wixii la burbursaday marka waxaad la mid tahay
qof dad wax dhacay yiri wax iga sii hadii kale way idin sheegayaan waxa tahay nin tuugo waxadaya nin inta ku qabtay yiri aan kula cuno hadii kale uu sheegaya adna tuu kala tahay way aniga Omaro saas ma qabo aniga horta Omaro adigu sheekh ma tiid oo wax yar daayro ana arintaas ka jawaabay Omaro anigu waxaan qabaa maadaama 30 sano shirkadahan ay isticmaalayeen area code-kii telefoonada Soomaaliya qadkii 252 ay isticmaalayeen airportadii degadii Soomaaliyeed waxaan oo dhan waa hanti waxa lagu dhisay shacabka Soomaaliyeed canshuurtii laga qaadi jiray markay isticmaalayeen 30 sano canshuur shacabka Soomaaliya ma siin hantidan marka daahir waxbuu ku leeyahay hawada Soomaaliya ay soo maraan telefoonada qadka alaabaha la soo dagayaan canshuurii laga bixin lahaa xaqii daahir iyo ilmihiisa iyo familkiisa ku lahaa hadduu nimankan xaqiisi ka soo dhacsaday annaka waa naga fiican yahay annakoo dhan ayaa la rabay inaan saas dhahno aan shirkadahaas dhahno xaqeenina siiya telefoonadii waa isticmaalaysiin canshuur ma bixinaysiin iskuulla ma dhistaan isbitaallo ma dhistaan marka haddii daahir kaliya uu doontay oo ummadda kale ay doonan weyday ilaa daahir dad kale ka awood badan baa waddanka joogee muxuu yahay aniga waxbaan kuu sheegayaa horta niyo dadka Soomaaliyeed markaa fiiriso sheekooyinkoodu dalka inay leeyihiin uma haystaan dawladda madaxweynaha shaqaale u yihiin uma haystaan shirkaduhu inay iyaga u shaqeeyaan shaqaale service u sameeyeen uma haystaan xaquuqda ay soo qofka muwaadinka Soomaaliga uu leeyahay inta badan ma fahamsana dadka Soomaalida waxa u malaysaa in maskixiin brainwash lagu sameeyay oo xaqa ay leeyihiin iyo wuxuu adduunka laga doodo ma taqaanaa aysan ka doodinba taas waa qodobka labaad niyo ani waxaan aaminsanahay ku sheega waxa ay aaminsantahay ku taala ani waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya ka dhalarto inaan ka qaadayo waxa qabiilkayga lahaayeen oo dhan ay xaquuq leeyihiin iyo waxa aan leeyahay inaan ka raadsado oo la isiiyo haddii shirkad la furnayo xaqaas oo kale aan ku leeyahay sababtana ku sheegaya aniga awowgay Cabdullaahi Ciise Maxamuud adoonay iyo adeeradii Cali Shida Cabdi iyo Xaaj Faarax Al Cumar xorriyad ka doonay qaramada midoobay oo riski u qaatay oo dalka u soo halgamay oo madax banaani iyo gobonimo keenay oo dawladnimada shaaciyay oo doorasho qof iyo cod qabtay oo ma taqaanaa hirgeliyay GSS wax la yiraahdo Faras Saciid ma fahamti aniga adeeryaasha dalka u halgamay oo Ethiopian kula dagaalay oo Mareykan huuntiisa kula dagaalay oo shabaab kula dagaalay oo wiilasheedii ku dhamaaday oo xoolaheedii ku dhamaaday oo dalka gumaysiyan ka hortaagana oo adeeryaasha iyo raggiga intay duuleen ay kaaraama tageen ma fahamti anuu nin habargiir markaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan dalkan xaq u leeyahay wax kasta oo dalkan laga qabaana hadda u sheegay dawladda jirto hadduu maamul goboleed jiro haddii sida la soo saarayo haddii nikal dhisanaya intaba aniga ku jira meel uga baxay male ilaa sayla ilaa meel walba ilaa laanta ilaa buntland meel kasta aniga waxaan rabaa xaqi aan lahayn laga siiyo xaqaaga miyaada ku dooran karin si nidaam ah oo sharci ah nidaam hadda hore ma wataa nidaam ku raadinaya hadda wax afiiri waxa jirta xaqayga la ii diidanay hadda qof ii diidan ma jirto dacwana ma qabo meel hadda inta aan tagay wixii aan ka rabay aan ka waayay ma jirto hadda marka anaga xaqeeni waa maqan yahay adiga xaqaaga raadso adiga ku taala hadii aad uga soo halgamay dalka Soomaalida aaminsan hadaan dhammaantiin waa salaama aniga dadkan u halgamay gobonnimadan u halgamay dhiigan u daadiyay cadowga anaa ka hordaagan hadda waxa dagaalamayo shabaab la dagaalay waa aniga adi hadda nin majarteena taa shabaab la dagaalaysa oo xuduudda ana ka xiga meeqa hadda maalin kasta ka dhimanaysa anaa qawaarida dagaalay Ethiopian kana la dagaalay way ogta waxaan xamar ugu dhex bar Mareykan iyo Black Hawk Down Africa laga sameeyay waa aragtay niyo ma inta aan maalin kasta la dagaalo shabaab oo argixisada la dagaalo oo Mareykan iyo huuntiisa la dagaalo oo la dagaalo Ethiopian oo awooyaashii adeeraashii ku dhamaadaan oo wiilashii iga dhamaadaan miyaa rabtaa in haddana tiraahdo xaqaaga raadsan dawladdan xaqaan ku leeyahay waa inay siisaa qofkii Soomaaliyeed inay maal gashato xaqaan leeyahay waa inay siisaa xaqaaga marka mashruuca hadda kale ku noosha cali beestiik ma xaq xuquuqi xaq leeyahay كما صار ماشي مساكنته عاشور لقى قاده حتى هذا مركا رسل لقى قاده مركا روايه برادر انيغو علي بيستين ان دلك u dagaalamين waxba laga qaaday xitaa warshadaha qabdiga istigaarkii wax walba waxa loo dhigay free okay adeer daahiro aniga iyo soo dagaalamay ay absiin waxa leedahay xaqaa doonanin waa kugu xaraan way absiinay way gaadaysaa xumaara
Omar قاعد بدك الدم هاي قاعد adeer daahir ay dhagayso xaqaagii waa u dooday waa raadsatay waana heshay heesaha xaqoodii aaway marka Omar taas maa la weydiiyo xaqii heesaha lagu lahaa adigana lagaa rabaa dheh